السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتنا وحران وبرنامج كني ماديسي أسبوع عاو حكوسنا هاي هوت سبوت ومقاعدة شدنا وكتالو مقالة نيروبي خاصة حافظة السوري ويتركوا عصر أنا دمبرو وعبد الرزاق وكشخ باللاوي هوت سبوت هاي عبد الرزاق كستم كان عصر ما شاء الله جارني شاهد عندي أرسن كعفر وصل هذا شاوشين thank you markaan dhadhamiyo kadib aan ogaan karaa inuu shaaha mahadsanidka way dambeyn aniga ya shaaha dhadhamiyo haddii la dhamaado la dhameysteen anaa u dambeyn فيديو مركو دماده mahad celiska isku soo fadhiisay isla sama dib mala asxaabta hore ka tirsanaan jiray marka maadaama hadda uu weeyta yahay inuu nala fadhiistaan jecelnahay soo dhawaada bashaacid العود دار mutin aado weyn soo dhawaada hotspot ayaan ku sugannahay videogan waxa sponsor gareeyay hotspot oo ku taalo 9 Street Nairobi Kenya hamoogan oo meel aad u qurux badan raashinkeeduna uu tayo sareeyo ku taala qaas ahaan waxay ku taalaa Slee kasoo horjeedka Imaaraat ama Sunrise ama suuqa jiif soo taqaanaba dadka reesliya soo dhawaada saafar badan ay la joogto maantay garabkayga bidix waxa fadhiyo Abdullaahi oo ku magac dheer Abaan Fanax waxa la yiraahdaa Dr. Munna kandanaas ahaan waa abwaan Soomaaliyeed haddaad maqasheen Soomaalinimadan dadka uga sareynaa waa abwaankii halabuurkeeda lahaa wuxuu jecel yahay markastaba inuu suubiyo heesaha muxuu ahaayay wadaniyada ay ku dheehan tahay soo dhaw aad baan soo taabtay adiga iyo Cabdirasaaq oo wata cusub oo caawa soo dhaweynaya barnaamijka oo quruxda badan la caawa maqaaxida hotspot aad baan soo dhaweynaya kafayga quruxda badan leh oo noo sameeyay saaxiibkeen ma sha Allah in ka soo wari dhadhamin macaankiisa halkaan ka arkaa barnaamijka aad baan u bogaadinaya ma sha Allah thank you so much dhamaantiin soo dhawaada barnaamijkan waxa la yiraahdaa maadaysiga isbuuca insha Allah isbuuc kasto maalin kamid ayaan idin soo sideen doonaa hadii la yiraahdo waxaadna hor u bilaawna u sheeg dadka ya hor u jiray barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamijka sheekooyinka gaagaaban ee qosol kale dib aan u soo celinay oo aan ka mashquulnay hadii Ilaahay yiraahdo week kasta hal maalin kamid ah ayaan idin soo sideen doonaa hadii Ilaahay yiraahdo adinkana waxaan idinkaga baahan yahay wixii aad sheekaysaan oo xiiso leh inaad nagula soo share gareysaan commentiga qofkii aan isdhaahno sheekadiisu waa ma sha Allah intaan ka aqrin doonaa sidoo kale waxaad noo soo raacaysaa meesha joogtid ku sugan tahay Abaan Fanax maxaa lagu soo tala gashay maadaama martino tahay والحمد لله aad baad mahadsan tahay adiga iyo dhamaan daawadayaasha aad baad mahadsan tihiin iyo Cabdirasaaq runtii horta waxa weeyaan sheekada caawa waxa weeye sheeko oo soo Soomaan diyaarin barnaamijkan waa ku cusubahay laakiin maadaama aan goob joog ahay waa inaan xogaa قهر sheeka yar oo ku Cabdirasaaq shaaho noo keenay Cabdirasaaq shaaho noo soo suubay by the way ninkan iskuul uu galay oo raashin karis shaaha hadii u baahan caawa shaah ma sha Allah noo soo suubay hadii u baahan waa kafayga uu sameeyay waa laga soo xiriiri kartaan hotspot okay waa soo wacagtii waterka cusub marka waxaan rabnaa sheeko yar oo macaan shaaha lagu xabo okay horta adiga iyo daawadayaasha waxaan idin la wadaagayaa horta sheeko yar oo la yiraahdo kaligiisa masani asaga ma aad way taraatay waxa weeyaan sheekadani oday reer miyi oo ah sheekada caawa oday ku socotaa saaxiibkay maxaa sid ku wiil jira ma aha sheekadiisa oo kale weeyaan oday ku socotaa oday reer miyi nin reer miyi ahaa nin oday saas ma ahayn laakiin nin dhaxdhaxaad buu ahaa reer miyi ahaa dabadeed magaciisa waxa la oran jiray Masago magaciisa Masago la oran jiray Masagadu waa Soomaalida qaar kood waxay u yaqaanaan umaleena haruur ma yaqaanaan haruur ay yaqaanaan baashi riis gudbiyosa هاديات وطغنا قليتي كانت waayada صح waxa dhacda marka Masago la oran jiray magaciisa ninka صح maalintii dambe wuxuu runiyo maanta magaalada naadaya ilma dhalinyaro wuxuu ku warniyo hadad magaalada aad maanta meydkaaga la soo sheegi doono oo waa maxaa dhacay waxa la yiri digaaga ku soo cuni doono ama dooro sida tahay Masago muqof nool markaas wuxuu waa maxay cuna markaas ay yiri Masagaday cuntaa Masagaday cuntaa markii la yiri wuxuu yiri Masagaday cuntaa ha ana cuni karto waxay cuni karto waan tagay raay tagi way waan arki doonaa maanta lagu soo cuni waayo dadkii uu baxay asagoo baqdina ku jirto ka baqayo sheekada looga sheekiyo aadna fulay waa sax magaalada waliga muu tagay sax marka soo socdo riyaadaha caruur yar weydiyo riyaadaha digaaga bahalka sidoo yaala markaas ay digaag waa bahal yar oo shimbira oo magaalada jooga
markaasuu okay uu sii socday oo maalintii oo dhan meel iska fashin birti haddaba uu ka baqayay soo sii socday magaalada markuu sii galayay صح laba digaag ee isciirsanayso waxa Soomaalidu diiq bay tiraahdaa دقيقة دورة diiqi doora la kiraahdaa waa labada oo rag ah ها lab iyo didig weeyaan mugta sarrak guud ma tahay waa laba diiq laba diiq weeyaan macnaha ragga waa laba diiq oo cabdisalaam kala jooga mugta ما لبن ما صدقنا مسنين هناك may waa laba diiq waxa weeyaan lab ah Soomaaliga naga qaldanina way marka labada diiq oo isciirsanay ayaa waxa dhacday ninkii iska socday gadaashiisa ka yimid ninkina dhiila ku taagneed mugto maanta dhan wuxuu iska tagana ruqay صح markuu aragay uu carrar صح diiqana waxa uu caadaa maanta midka kale markuu ka baqayo dadku kula meereysta inuu dadkiisa ka reebo rabaa كلهم ninkaan carray markuu arka asna uu ka daba carraa صح gooradu ka laabto uu ka daba laabtaa faslu uu galo uu ka daba galaa albaabkan markuu dhanka kale ka soo galaa diiq waa xariif aniga mardo hadee nafaa soo diiqan kale ka baqaya inuu saga reebo rabaa صح dabadeed ninkii soo u carray naftu inta qabatay oo reer albaabkoodu iska furaya oo madax sugu tuuray jug heerkii waa la soo naxay waa war maxaa markaasuu diiqina markuu meesha isku tuuray oo iska dhinac maro gurigu dhinac kale kala wareegay صح deerku iska wareegay صح ninkii markuu isku tuuray reerkiisa war maxaa ku dhacay waa waxa dhacay ayaa soo ceersaday ma tuug malaha waxba soo bursaal saamid markaasuu gadaal u furmay war diiqiga reeba bahlo naqbaan watiga waxaa ku soo ceersaday diiqa soo ceersaday diiqa soo ceersaday ما كان وين تاع دقيقه فو دقيقه دقيقة اسمها كفاية دقيقه كفايه صح markaasuu wuxuu yiri war anigu waan ogahay aniga magacayga masaga la yiraahdaa laakiin diiq inuu cunaan ka baqiyo magacayga masaga buu kasama oo diiq ma qof binaadin cuna karaa laakiin anigu waan ogahay qof binaadin ahay laakiin diiq uu sheegay ibn magacayga masaga صديقي waxa la rabaa qof uu sheegay inuu garanaya la keenay soo hadii qof aftaqaano marka daawayaasha waxaan leenahay qof diiq aftaqaano oo ninkaas asaga ahay inuu san masaga ahay inuu magaciisa masaga u sheegto هذا ما صنعي أبواني نحن ما نعلننا هات سبوت ريستورانت أو سبونسر جريسي فيديو كان هذا يدوم هالسنتين داوشة داون إنسان دمان أنت نقول حران فلان هذا نهرو سبسكرايب جرين ألم كانت هاو صدق نقطة داوضها أبوه الريو داوض برنامج هذا صدرينه برضو وحصل صعده فيرن ومعان بدن لكن كم هو الراعي صدق لنا بقى كجرنا ينين قضايا هنا جم مكان ومجلس اللي يراد أختار دولية سيرنا مغني هاي أختار دولية اللي يراد وأنا جم مغني هاي كانوا حالي ويلكاين واز مغني هاي مركز إيمان هاي أم صدري هاي فيديو هذا ما سنتين فضلا واحد شيكنا هيسان نلاصو شير قرايه ان شاء الله شيكadu ugu horeyso naqanciso waxaan ku soo qaadan doonaa next barnaamijka nasashada waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadiyo